وأنك مدحضة مدحوينها هذا وزيرها هذا قبرها هذا لستر كوميشنرها هذا بوليس كوميشنرها هذا ميليتري قيب مارتها كايستو نين على نكي مدح أمدنا حلو هيا رادو هوينادو حلكا ولا قال حساب تبيا ما أنت لقتني اللقاوية هي إلهي باك لا حساب تبيا مسؤول عن رعيتي وحي إلهي مارتي حل كود وقاضي مدحت الله ويا مدحت النبضة إلهي ما بحية إلهي مدحت النبضة كساري باك لا حساب تبيا بوسكي أنكو ديتشي حلكي أنكو ساري هل كان نكتب إلهي كورنيا أي قفك إلهي أورنيا habeenkiisa lagala xisaabtamaya maalintiisa lagala xisaabtamaya dhaqaalaha lagala xisaabtamaya dhaqaalaha dumadu haysi baa lagala xisaabtamaya madaxtinimadii waxa lagala xisaabtamaya cadaaladii ayaa lagala xisaabtamaya sidqigii baa lagala xisaabtamaya waxa runtii ayaa lagala xisaabtamaya wax walba waa lagala xisaabtamaya amaanadii baa lagala xisaabtamaya raciyadu waa amaanu ninka madaxda raciyadu amaanay ku tahay amaanadii raciyada lagala xisaabtamaya haddana waa la soo dego waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam warajulu raaci fi ahli beytihi ninka keliya ee qofka muslimka ee shahaadanaya mas-uulu wuxuu ka xilku ka saaraya fi ahli beytihi ahli beytkiisa wixii ehelkiisa xaaskiisa caruurtiisa qaraabada guriga kula nool dadka la nool ee guriga la jooga ayaa lagala xisaabtamaya maxaa lagala xisaabtamaya ilaahay ma ku xidhay oo rasuulkiisa ma ku xidhay oo masaajida ma ku xidhay oo dumarka astarka ma ku xidhay oo gabdhaha xayada ma ku xidhay oo ma ku tirtirsaday oo awlaadda masaajidka ma u kaxaysay oo salaada ma bartay oo diintoodii ma bartay oo ilaahay ma ku baraarujisay qabriga iyo qiyaamaha iyo su-aashii iyo xisaabta ma kala hadashay caruurtaadii iyo ehelkaaga ayaa la odhanaya haddana waxaa والمرأة راعية في بيت زوجها قفك الدمر إنه مسؤولة حلبة أيضا صارن في بيت زوجها حلك أقول رئيس الدمر كاللي قدوليو وقولي ننكيده نكي نكاح حلاشة كل نكاح صدي أي محبوسة دوتهاي ويوحباسن تهاي قولي يعرورتا ينكا حلكو دي مكسوب بحدي بالله أورانيا مسواد دي عدي قفك الدمر كأهاد دمر نمديدي iyo zawjiyadeedii iyo hooyanimadeedii ayaa lagala xisaabtamaya ilaahay baa la xisaabtamaya qiyaamaha lala xisaabtamaya kullu aatin qariib wax qiyaamada dad baa moodayeen wax fog yahay man maata faqad qaamat qiyaamatu haddaad adigu dhimato qiyaamahaaga waa kacay qiyaama kale ummaddu baa laysu keenaya laakiin adiga qiyaamahaaga waa kacay markaad dhimatay xisaabtuna qabrigay ka bilaabmaysaa حاكم محكومة ندق لبود صغير يا كبير با يري وين با waxay uga bilaabmaysaa qabriga ilaa miisaanka ilaa banka qiyaame ilaa jidka siraad ilaa ilaahay la soo taago iyadoo la qatiyo la qaawan yahay ayaa lala xisaabtamaya qofkii dumar ahaana waa lala xisaabtamaya xilka dumarku waxa weeye kan aynu inagu samaysanay ama gaaladu inoo samaysay maaha mas-uuliyaddii dumarka xilkii dumarka عرفت واحد ثلاثة المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها إلى قبرها بين هذا قفك الدمركا وإن قرق أبيهد لغو صبر باريو يقرق هو يدين وقرق شوقنمو يحشود يحيا لغو صبر باريو وإن قرق لغاك حيا قرق نكيد لغيو نكا ما أنت ريساتو قرقو دي ويكتكتي خير كاسي مسؤول كتحي خيرك أي سو وركتبي مسؤول كتحي أو لقى حسابتمية لا كلا حسابتمية ما وحي حلك كلا صارين ولا ويدينية عرضوا حتى لا أكله قفك الدمري لباتن سنود أبيه هذي صارنتها لباتن سنودنا أوديك هذي صارنتها لباتن سنودنا إنك هذي صارنتها لو ريال إحدى كاس سنود هذي سين ولاتو لباتن يا نوري لا تنبا مد بي صارنتها لباتن كهري أبيه هذي هو يد بي صارنتها labaatanka dambe iyo dhowr iyo labaatanka dambena waxay saaran tahay zawjkeeda mar haddii kunto gaadhana dhowr iyo afartan kunto gaadhana inankeedii oo markaa 20 jira oo 30 jira ayay saaran tahay halkaa waxa laga doonaya in qabrigeeda la geeyo wadooyinkan kale dumarka loo jeexay ibliis iyo gaala jeexday wax xaq maaha waa baadil wax xaq maaha
dadkii waddooyinkaa kala jeexayna kumay faa'iidina way ku khasaareen dumarkii baa ka kharibay carruurtii baa ka kharibantay maxay tay qoyskii baa dumay maxay haytay markay qofkii dumarkahayd gurigeedii diidday ee carruurteedii diidday ee dhaqankii ilaahay u jeexay ay diidday gurigeedii bay dumisay marka mas-uuliyadda qofka dumar siday mas-uuliyaddeeda u hanan lahayd marka yartee waa in lagu soo barbaariyo oo guriga aabbaheed lagu soo barbaariyo oo guriga aabbaheed laga keeno guriga ninkeeda la keeno oo guriga ninkeeda laga kaxeeyo qabrigeeda la geeyo waddo kale male waddada ilaahay dumarka u jeexay waa taa waqarna fii buyuutikunna guryihiinnaa soo jooga ayaa ilaahay yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna jilbaabkiinna isku asturo jidhkiinna oo dhan wada astura wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaatillahi walxikma guryihiinna wax ku bartoo waxyiga ku soo degaya iyo aayaadka iyo sunnaha nebiga soo degaya barta oo dadka u weelaya oo dadka gaadhsiiya waddada dumarka ay loo jeexay ilaah iyo rasuulkiisu u jeexay waa taa marka haddana waxa walkhaadimu raacin ninka shaqaalihi waa ilaaliya ama taajir ha u shaqeeyo ama sharikad ha u shaqeeyo ama qofba ha shaqaalaysto oo qof ha dirto walow xataa hadduu adhi jir yahay qof adhigaa u dirto ninka la shaqaaleeyey waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay fii maali sayidihi ninkaa shaqaalaystay ee sayidka oo madaxda oo ah xooluhu u dhiibtay ee u dhiibay ayaa lagala xisaabtamaya yaa la xisaabtamaya ilaahay baa la xisaabtamaya maanta la qatanya la qaawiyey ayaa la xisaabtamaya hadduu xisaabtaa ka soo baxo waa qiila dkhuli aljanna jannada gal baa loonaya hadduu xisaabtaa ku dhacana waxa weeyaan waxa ka imanaya dhib iyo khasaare iyo maxay haytay wuxuu ka shalleeyo ayaa ka imanaya marka ummaddu sidaasaa xil u wada saaran yahay oo xilka laynaga doonaya sidaynu ku gudan karnaana waa kee waa inaynu ilaahay ku xidhnaanno madax iyo manjaba dhidig iyo laboodba saqiir iyo kabiirba waa in ilaahay lagu xidhnaado oo ilaahay la garto la barto la caabudo la baryo la tala saarto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnihiisa waa in sunno laga dhigto oo la barto oo nebiga ilaahay la jeclaado rasuulkiisa la jeclaado sunnihiisa la jeclaado oo dadka cibaadada iyo salaada lagu tirtirsiyo si ay dadku addoommo ilaahay u noqdaan oy diintooda bartaan oy ku camal falaan oy fidiyaan taasaa ifkeennana u noqonaysa inay una hagaago aakhiradeennana sabab u noqonaysa inay aakhiradeennuna hagaagto dadka qaar baa nidaamka gaalada wax weyn u arko ku degdegayo isjeclaysiinayo isku qafilayo oo magaranaysaa maaragtay diintii islaamkii iimaankii camaashaan waxba u arkayno sidaas maha nidaamkaasi nidaam materialistic ahoo maadiya weeyaan aakhiro waxba kaaga qaban maayo bal wuu ku khasaarinaya haddaad cibaadadii kaga mashquusho oo daacaddii ilaahay kaga mashquusho oo daacaddii rasuulka kaga mashquusho oo sunnihii nebiga aad kaga mashquusho oo diintaada barashadeeda iyo camalkeed falkeeda iyo fidinteeda aad kaga mashquusho waa khasaare carabtaa tiraa tacabu nasaara khasaara way tabcayaan gaaladani laakiin tacabkoodaas waa khasaare waayo aakhiraan waxba uga tegaynin aakhiro waxba kuma laha nin diin la'aan ku dhintay oo iimaan la'aan ku dhintay islaamnimo la'aan ku dhigtay oo aakhira u shaqays la'aan ku dhintay tacabkiisu waa khasaare sidaa daraaddeed khasaarahana inaan ka digtoonaanno wixii if iyo aakhiraba lagu hoggaamin lahaa ilaahay inagu ina siiyey dadkii diintooda ku dhaqmayey ee baranayey ee fidinayey adduunyadiina way hoggaamiyeen aakhiradiina way hoggaamiyeen gaaladii islaamnimay sabab ugu noqdeen inay gaaladii oo dhammi soo islaamto muslimkiina waxay sabab u noqdeen inay toobad keenaan oo taqyiir acmaal ay la yimaadaanoo ay ummaddiiba ay ummatan waaxida ay noqoto